بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا موسيقى كذا مغالية. وين السلام لكل دين بعد باين السلام. ناس anyway waa soo dhaweynayaa maantay dooradii Soomaalian gelin badanaa waxaan soo galaa 8 saac oo doorno waan raali gelinayaa markii waxyaalo badan oo Muqdisho ka socda dhexdeeda ama gobolada Soomaaliya ayaan rabay inaan xoogaa dhigto dhigo intaanan soo galin marka horta mahad celis weyn ayaan in leeyahay aad iyo aad baan ku mahad celinayaa ilaahay ha inii sharfo waad sharafteen rabbigay qiimo iyo qadarinba ilaahay ni siiyo inta igu xiran oo dhanba iyo inta Soomaaliyeed oo dhanba maxaa maanta sheekadu ay tahay maanta sheekadu waxay tahay wax lagu farxay iyo wax laga naxaba waxyaalaha laga naxayo oon rabo inaan maaragtay dad la wadaago oon aniga afkayga oona karin laakiin ay rabaan inay ka hadlaan hal qof kaliya ayaan waxaan ka ballan qaaday in aan soo qabto sababtuna wax kale ma ahan intaan wararkayga sii gelin waxaan rabaa kaliya inaan ka wareysto gobolka Banaadir waxa ka socda iyo maaragtay sida ay wax u socdaan iyo sida la yiri in aan ogaado taas waa very important marka waxaan rabaa qofkan waana taqaanaan si fiican baad u taqaanaan وانا كاميرمان افي واتقانان ودadkii wakaalada filimada Soomaaliya ka soo shaqeyn jiray marka maanta asaga hadalka ii sheegay laakiin anigu waxaan jeclahay qofka asagu inuu afkiisa ka sheego marka bal waan arkaynaa xilliga maaragtay uu soo galo leenkayga taas inta ka horeysana waxaan ii sii wadahayaa sheekooyinka kooban barkay inuu ogaado waa qasab on live ka ah YouTube-ka marka waxaan rabaa inaan inii sheego war maxaa ka socda gobolka Banaadir waxaa ka socda waxyaalo badan oo loo dulqaadan karin oo dulqaad lahayn oo bil aadan oo ugu dulqaadan karin ayaa ka socda madaxweynaha maxaan inii sheegaa ugu daraato wali inuu ku sii dhiiranayo in maaragtay in Banaadir gobolka kuraasteedii lagu qaybsto federal waa wax horta hore aad iyo aad looga xumaadaa waana wax maaragtay aan la qaadan karin marka waxaan jeclahay nin aniga abti iigu aadan reeqooyo dhawayn salaam oo abtigeeya oo laga reebi waayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ana aqoon fiican u lahayn laakiin wax simpatiye la yiraaho u qaaday oo ka arkay shacabka Soomaaliyeed oo la marhabaadiyo la madaleeyo sidii sixir iyo waxaan fiicnayn loogu waday dadkii ay wada noqdeen wax hadda maxaa kamid ah lagu leeyahay saaka waxa soo shacab waxa lagu leeyahay ma aqaano in waxa lagu yiraahdo falcona ma ahayn waxa la yiraahaa geeda qorta laabta maxaa la yiraahaa taas magaceeda iga maqan laakiin waxaan ka sheegi doonaa Facebook-gayga waxa la yiri geedaas ayaa 7 geedaas oo nool afka inta laga xiray ayaa la duugay waxa la iskugu yeeraa la yiri odayaashii meel kasta joogay la yiri waana waxaan la qaadan karin oo loo dul qaadan karin waana wax laga xumaado marka waxa jira odaygan maaragtay oday waa nin reer waqooyi ah oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aad iyo aad ugu bukaysnaa oo sababtoo ahna maaragtay hadaladiisa iyo maaragtay si sharaf leh u tixgelinayay maaragtay u handhowraayay waxaan jeclahay inaan nila wadaago warkiisa laakiin izi new fitail leeyahay barkee sheekadu waxay ku jirtay Facebook-ga waana wax laga xumaado aad looga xumaado waana wax la qaadan karin oo shacabka Soomaaliyeed ayna qaadan karin maanta soo u joogay ninkii shalay difaacayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maanta wuxuu yiri
warheedhe meesha jabuuti markii lagu hadlayo yidhi soo qofuma joogin yidhi wallaahi bilaa waxa fiican aniga ina maqashiiyo asiga codkiisa waa laga fiican yahay afaan afkaada ahayna ku hadashid marka I don't know waa raadin doonaa insha allah laakiin waxaan ogahay inuu facebooka ku jiro meel aan kusoo tuuraan garanaynin hadda barkee dhibaatada jirtaa waxay tahay laba facebook aan leeyahay marka problemku waa taas marka wuxuu yidhi war wax la taliya oo arka ma la waayey wax la taliya oo arka ninka ma la waayey lama weynin laakiin waxaa iska jira waxyaalo badan maaragtay oo la qaadan karin oo maaragtay horseed aanan u noqonaynin dadka oo maaragtay imagine aan lagu wada samayn karin marka ma hayo laakiin facebook aan kasoo saari doonaa insha allah waa la iisoo diray nkee qofaa wuxuu igu soo diray hadda ma baadagoobi karo laakiin inaad dhegaysataan waa very important iyada iisoo dirtay marka inaan arka weeyaan meel bay iiga soo dirtay I don't know messengerskaygan kuma jiro laakiin waan arkay way iisoo dirtay waana ka xumahay inaanan hadda halkan ka arkaynin laakiin insha allah waxaan ka tusi doonaa facebook markii hore waxaan u maleeyay inaan ku tuuray whatsappka marka I don't know whatsappkiiba hadda ma arko laakiin ama geedkii aanan furmaynin inaan magaca ku qoro waaye raalli ahaada maahan emailkayga magac keliya lagu soo diray bal waa arkaynaa meel kaleetan in lagu soo diray waa furayaa waxaan rabaa keliya inaad ila dhegaysataan walaalayaal adinkoo horta odagaasu abtibuu iigu aadan yahay ilaahay cumrigiisa ha dhowro waa nin reesha isxaaq bin axmed ah ibnu haashin ah maasha allah kulleyba qurbahaanuu joogaa I don't know inuu UK joogo inuu meel kale joogo waa isaaq wuxuu yidhi war ma waxa la waaye buu yidhi muxuu yidhi mar walmax la waaye uu yidhi qof taariikhdii soomaaliyaba ku qaldo iskism intuu yidhaaho aamusiiye uu yidhi oo dib bal ila dhagaystaan wax laga caroodo waata waa ninkii dhammaayo u doodi jiray maxamed cabdullaahi farmaajo qurundhan oo taariikhdeedii xornimada ugu qaalisan garan la oo waxay doontaa iska odhanayso wax qabanaya oo odhanaya wait a minute waaba joog isbaba weydiin oo qaybtii xasuustu dhammaatay anna waa ku wareera balse meelaan kaga hadha ma hayo maxaa u qaban kartaa oo taariikhdeedii xornimada ugu qaalisan garan la oo waxay doontaa iska odhanayso wax qabanaya oo odhanaya wait a minute waaba joog isbaba weydiin oo qaybtii xasuustu dhammaatay waa ka xumay anna waa ku wareera balse meelaan kaga hadha ma hayo waa ka xumahay abtigay inuu maaragtay kelmadahaas yidhaaho ninkaan nin loo hiiliyo ma garo ninkaanu hiilana ma kaso waan ku dareemi karaa laakiin ninku siyaasi ma ahayn kuma uuna dhaqmin addiiniyatul islaam kuma uuna dhaqmin lowga dadku ay sharciyada kaga dhaqmaan kuma uuna dhaqmin farmaajo wuxuu ku dhaqmay maskax wareersan oo jiran oo asaga ku jirta waa waxa maanta ka keenay muqdisho inuu yidhaaho hala ansixiyo maaragtay oo la hadlay mursal oo caado qaato ah oo waddankii soomaaliya baabi'iyey oo barlamaankii la dhex fadhiisiyey waa mid adduunyada laga tashan doono oo ragga noocaas
noocaas oo dambe aan baarlamaan Soomaali leedahay oo af shacab looga hadlayo aan la soo fadhiisinin dadka corruptionka ku dheereeya sida mursal oo kaleeto oo golaha shacabka fadhiya iyo ku xigeenkiisa mudday nimanka nolosha ka dhacayaan ku leeyahay oo dawladnimo meelna aan ka soo bixin Soomaaliya hadday dad serious oo cilmi loo wax bartay ay joogi laayeen maxamed cabdullaahi farmaajo asagu shahaadadii ka soo gatay baafala oo u soo gadeen niman dhulbaanta iyo sheeqaala ayaa waxa la yiri madaxweynaha tahay maantana maxaa la yiri guumaysta la yiri geedaan guumaysta shimbiraha ma aragteen oo dhaha kuwaas waxa la yiri afka inta laga duuduuba ayagoo 19 xabaha la duugay la yiri oo loogu talagalay hawiyaha oo la yiri saynan afka uga hadlin xamar baa laga hadlayaa maqaankeedii laga hadlayaa siyaasi ka hadlay ma aragtaan maya Muuse Suudi ma nin kale oo ka hadli kara ma jiro waa maskiin waay kaligiis muxuu qaban karaa Muuse Suudi kaligiis muxuu qaban karaa odayaasha wiil intay ka baxeen wariyada electionku waa dhacaya farmaajona ma loo baahno go'aanna laga soo gaaraya farmaajo waa shakhsi Soomaalina ma matali karo maskaxdii lagu matali lahaana male barkee waxaan inuu ku cadeynayaa maanta odagaan isaaq oo baabuur soo uga hadlaayay marna gurigiisa uga dhex hadlaayay kaadidiisa u cabay yaa waa wax laga xumaado dhageysta taariikhdeedii xornimada ugu qaalisan garan la oo waxay doontaa isku oranayso wax qabanaya oo oranaya wait a minute waba joog isbaba weydiin oo qaybtii xasuustu dhammaatay waan ka xumay anna waa ku wareera balse meelaan kaga hadha ma hayo wallahi waad haysaa meelaad kaga hartee odayo waxaan ku leeyahay reewqooyiga abtiyo waxaan ku leeyahay Soomaalida dhibaataad ku haysaa foolaad ku haysaa ay ka fadhiisa aan ku leeyahay adoo kale taa maxamed cabdullaahi oo maskax leen oo aqli leen oo siyaasad aqoon oo waxba aqoon adaa dabada ka riixay marka waxaan ku leeyahay Soomaalida inaad dhaaftid way abti Soomaalida problemkeeda waa inaad ka baxdaa dhibaato una geliyo dagaal buu una geliyo al-shabaab uu noqday amarka asaab bixiya xamar lagu qarxiyo ninku inuu maskax leeyahay ma u malays maanta wuxuu leeyahay meel hebel la soo qarxiyo nin hebel gurigiisa loo dhaco ma nin siyaasi ah ninka waxa isku dhaqmahay siyaasi maahan ee waa ragga dabada ka riixayo iyo ragga uu lacagta siiyo oo halkaas hadda inuu ku xasuusanaaba dhici karto wuxuu ku dhigi doonaa anigu horta waalid baad ii tahay nagrib qoyay dhashay laakiin waxaan ku leeyahay farmaajo markii la yiraahdo odagaan saanu yiri wuxuu ku leeyahay oo muxuu igu hiilinayaa sababtoo Muuse Suudi Muuse bixi iga soo horjeedsaday marka ninkan maanta kuma yaqaano birino waa ku yaqaana maskaxdiisu waa wareertaa waa socotaa waxaana waxa waa ilaahay maana aadama macaafin karo wala dhakhtar wala daawana wax tareenin waa u duceyneynaa maxamed cabdullaahi farmaajo laakiin waa inuu haduu rabo ducada Soomaaliyeed oo ka degtaa siyaasadda oo Soomaali weydiistaa cafis oo yiraahdo walaalayaal waa la ii duceeyay caloosha socotay calooshu ku socotay barkee waadna dhibtay wadankii baad halaagtay dadkii baad halaagtay ehel ma taqaanid Soomaalinimo ma taqaanid islaamnimo ma taqaanid waxa taqaanid male maanta waxa leedahay banaadir loo qaybsado 4.5 oo meeyo dadkii iska lahaa adigu ma handicap baatay waaba kula yaabanahay meeyo dadkii iska lahaa ila 4.5 kii ku jirtay cid mudulood la dhahay iska leh wariyaa mudulood ka hadla waxaan maxay tahay aad u hadleen uduuda aamusantiin ninka wadanka laga qaado oo gobolada waa inay hadlaan maxaa la yiraahdaa dani oo waa inuu hadlaa ninka la leeyahay bahalkii muxuu Axmed Madoobe wariyada wadankan Soomaali baa leh loo istaago muxuu ka doonay ninka qadar ah maanta muxuu ka doonay magaalada la leeyahay Kismaayo inuu ninkaas al-shabaabka wax siiyo dadka diimaha dadka ku baabi'iyo oo wax siiyo sababtu ugu tagay Axmed Madoobe maxay tahay muxuu ka rabaa annaka qadar ma rabno siyaasad Soomaaliyeedna inay soo gasho ma rabno hadda runta ay sheegayna qof Soomaali oo gol qadar male qadar intay na qarxin karto waa na qarxis intay na dili karto way na dishay siyaasadeennana ma soo galayso taasina ballan ilaahan ku qaadnay Soomaalidana waxa leeyahay in allaalay inta ka soo horjeedo oo magaca Soomaalinimo islaamnimada sheegata waa in qadar loo wada kaca oo la wallahi indheega biyaha soo daadanayo Soomaalidii qadar ilma yar oo wax barasho u socday ay baski ku ololisay waa qadar waxa wada qarxiyay waa qadar waxa rageen guriyooda loogu dhacayaa oo siyaasiyiinta waa qadar waxa Soomaalida iyo hooyada indhaha la baabi'iyay waxa hooyo Soomaaliyeed ilma la'aan iyo nin la'aan dhigay waa qadar wariyada qadar aan iska celino naclad ba in ku taalayaan in dhihine yaana in nacladaynin qadar loo kaco hal iska celiyo qadar maanta maxay ka doonaysaa Axmed Dani maxay tahay siyaasadda ay ka leedahay maxay ka doontay Axmed Madoobe Kismaayo ma doonayno ama ha aqoonsata ama ya aqoonsan Axmed Madoobe waa nin Soomaaliyeed 4 sano loo xukumay inuu hayo maaragtay meesha uu joogo diyaaran u nahay waa u soo dagaalanay halga u soo wada marnay qof aanan u eexan oo shacab Soomaaliyeed ma jiro dir iyo daarood yahawiye jareer iyo jilac waa loo soo wada eexday waa la soo wada garab istaagay qadar sababtay annaka siyaasadeena iyo gobolladeena iyo madaxdeena uga dhaqaaq weysan tahay maxay tahay
maxamed cabdullaahi farmaajo oo jiran markay arkeen nin fudud oo wax kasta laga dhammaysan karo oo maaragtay dhaqaalihii waddanka laga dhammaysan karo oo dekadihii laga dhammaysan karo oo wax kasta oo la arkay etoobiya goormay ogaatay inuu jiran yahay ninkan long time waxay tiri electrayana waxay tiri safkaan soo gelahayaa ayay tiri dayn maayo maxamed cabdullaahi farmaajo ninkan waddankiisoo seelgarayna annakana dhinaceenna aan ka qabsanno khayraadka may fahamtay maxamed cabdullaahi mar horaa la isku sheegay adduunka oo dhan baa isku sheegay qatar etoobiya eritrea iyo kenyaba waa isku sheegeen wuxuu arkay madaxweyne uhuru kenyatta farmaajo nin caadiya inuunan ahayn aa la arkay waddankaa loo kaco qatar waxay soomaaliya iyo goboladeeda safiirkiisuna maba joogi karaba soomaaliya waryaa soomaaliya tage kusoo qarxiya soo googooya safiirka u fadhiya qatar xalane waa inaad dishaan oo aad ka takhallustaan oo magaca soomaalinimo loo dhintaa qatar waa al-shabaab way ka daran tahay qatar 100% al-shabaab ay qarsaa meel loo raaco leeyahay isagu qatar meel loo raaco male terroristayaasha oo dhan bay biishaa ninka wayba tiribe haddaa wax qarxinaysid haddaa wax dilaysid anigu waa ku biilahaya turkiya maxay ku tiri waryaada ka bax ka aruursa raggaaday tiri soomaaliya meel kasta 4 koona bambaan ka qarxinaya ayay tiri sirdoonkiyaa hadlay oo turkiya waad ogeydeen waryaa qatar aan iska qabanno safaarideedana ma rabno baasaboorkaana lagu qorhayaa noo qatar ma rabno haddaan soomaalinahay annagu ma rabno marka waa ini salaamayaa programka la sheergareeyay ha la isgaarsiiyo qatarna soomaali waa inay mid ka noqotaa oo meel looga soo jeestaa qatar waana baabiisay ilaahay baabi'iyo calaaman ummadda islaamka ayna qabin oo daawo lahayn allaha ku riday qatar waana baabiisay waddankeeni daroogay keentay waddankeeni khamray keentay waad ogeedeen waxay ka dhigtay central drugs ay ka dhintay danay u socotaa kismaayo maxay u soo baryeen waxaa la rabaa afisione haddii nin hawiya meesha soo koro ama nin majeerteen inuuna yeelin airportka aadan cadda iyo afisione in darooga lagu qaybiyo maxay ka doontay axmed madoobe waryaada ulajeedaa ku jirta iska ilaaliya qatar dad fiican maaha waa waxay carab loo heshiin weyne waa waxa ilaahay islaamka u daba dhigay aan iska qabanno oo gacmo xiran annakoo isaysana xaasidka dhan aan iska qabanno waa qatar waa etoobiya waa eritrea meelaan kenya soomaal hadday badda soomaaliya ka dhammaan weysa ayadana meelaan kusoo ogaanaynaa maanta maalinay nooga xuntahay ma jirto viva o morto waa isku wada qarxinaynaa annaka dhan ninna dhulkeenna dhaxli maayo ninna dhulkeenna iyo dhaqaalaheena iyo biyaheena dhaxli maayo aabbayaasheena usoo dhintay awowayaasheena usoo dhintay meeshaan ka soo jeedno ayaa xabashi la dagaalamaysay waxaa lagu leeyahay xayla salaas war xayla salaas aan keeg ma jirin waagii dagaalka soomaaliya iyo etoobiya u socday arda xabashaa la dhihi jiray yani sheekadaas la keeni soomaaliya hal meelaa kasoo wada jeedsa waa ini salaame mar dhow facebookaan gelahayaa geedkaana hala kala kiciyo yah marka waxa waaye saas waaye waan idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay aan qadariyo laakiin qadar haddaan maqlo dhiiggu boqol u tagayaa qadar ma maqli karaan dan inii ma sheegaayo waan idin salaam walaalahay heeskii aan rabay inaan daba dhigo laakiin macno ma leh insha allah